بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما لا والله قف يعني يقف بني آدم إنه يسوق سكور ربه ولا يسوق ربه إنه تانولا يعني بدن با ما تي في أما قول الجرائد أما قول الراديو وأي ما دين وكورة سنة ولا جينا ورما بحين ولا جينا تي في متجين واحد ضد كود داوضان مساجد داوم بك قاتنا عشان ده هي الله ده واحد سلا على مركز كور رمات كده بيسي على النديدين ورمه marka wax badan oo sheego runtii ay ku kordhinaysaa ma jiro waqtigiina la lumiyo maaha anu raga halkan fadhiyo oo ka wada daaweynaan u maleynaya Sheekh Maxamed Umar Mala isku dhadhownahay Mustafa Haji Ismail Harun baa la yiraahdaa reer wadaadaaba ka dhashay abahay Haji baa uu ku magac dheeraan sheekh uu ahaa awogay aw Harun baa la oran jiray awogay ka dambeeya aw Yusuf baa la oran jiray reer culimo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka Burcaan ku dhashay waqtigii isticmaalkaanan dhashay intii aan dawladda Soomaaliyeed dalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabahay Allah u naxariisto 45 sanadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo ragga joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedoo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaan walaalaanay nin qurana kaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyana loo diray baadiyana ku soo dhalanay baadiyaha gobolka Togdheer ee Burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institute-kii Jarmalka Burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada leydku ahaa jaamacaddii Soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal leyda baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan وفرسما يقان ليد باك بحي جامعة دا كديبنا واحد نقضي معلم دوكسيغا فرسما دا قعنته جرمال كودسي كويا لما قال طبعا معلم كان نقضي مركان مدو سنة دي يبقى لها تشوغي دولة الصوماليات باي حدي دولة الصوماليات مرة بوح بدنا كشيغو لكن انت ميلوده wax ku xidhi jirtay waan soo maray station police waa la igu xidhay NSS waa la igu xidhay xero gulwada waa la igu xidhay xero military waa la igu xidhay dhabarjabin waa la igu xidhay jeel waa la igu xidhay waligeena maxkamad la ima tagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray على كل حال وحبرشة دينتنا وحنباي هيدون علماء الصوماليات ودن كدجن وحيانو كبوسني مجرين ودن دبدي ضانو بحي انتي دنبنا سانو تشوغون ودن الصوماليا يا دقالدي جبهدوه كدعين مقالة برعان تشوغي مركين 1988 جبهدو سوق الشيء waqtigaas baan wadanka ka baxay Yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayo aan walaalana geeyay anigoo Yurub jooga dawladda Soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa Yurub March 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa ilaa haddana Hargeysa aan deganay laakiin socodkayga Yurub waa tiro badan yahay كوبي لا تكاسن ضد مبرعية هرجيس بان كدحية لكن وبدن هي سعود كيغا كون نقضه يوروبيا ميلها كون نقضه ان قبل نولولات كي سوماليا واجي هورانا الاحدانات كينا الديمقراسي باي هيد ديمقراسي قبيل كانون قصليسان هذا با aragtaan
waxaan xasuustaa iyadoo 1969 68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay waddada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saasa cirka yaale cirka iyo dhulkaa la sheegan jiray heballada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamkaa ku qanacsanayne hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furnayn diyaaradaha dibadda ka yimaada only xamaroo ka soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd haddaan qiso idiin sheego dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystee markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahy ku daboolan habeen baa labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa ila wuu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaadatay yacni kutub ma taallo badani aad bay cidhiidhi u ahayd culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado nin inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaasaa la akhriyi jiray على كل حال waxaan uga dalayaa aan arrintan u tilmaamayo waxa weeyaan jaaniska ay idinku haysataan ma oolin waaga jaaniskana ay kutubtu bankayda jeeb ku sidataan ku jirto meel kasta lagu iibinayo ay kitaab aad u baahato aad helayso electronically aad shaamilo soo download garaynayso oo dhowr iyo 10 kun oo majalladay ku jiraan yani jaaniska sida tan ee qofku research samayn kara wax baxthi kara wax baari kara waaga ma oolin laakiin waxa yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimana ku jirto oo in ilaahay waxa ugu dhawaadaan ay ku jirto marka aanu qadiyada jecel inaan ku celiyo waxa weeyaan war nimcada haysataan ee ku saabsan diintu sida ay maanta u fududahay inuu qofku barto may jirin may oolin waxay ahayd wax aada u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sida aad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aada akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambena dee meelaha un soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli bana gaadhin macallinkuna daris loo diro buu soo diyaariyaa oo uu deedhiga waana laga yaabaa wakti aanay culammada soomaaliyeed haysanin qalabkan technology-ga inaan un yurub ka hortegayo wax akhriyo dad wuxuu akhriyay waxaan xasuustaa cajaladahan ugu badane hore ee maintiyadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray Soomaaliyeed oo Norway maqaaxid Somali Welfare la yiraahdo Somali Welfare Organization ayaan ku dhawaan labadii toddobaad maalin wax maydeen akhriyaa oo ka sayraadeen ha niman carabaha ka tagay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badnaa markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla al-iimaan arkaan al-iimaan iyo xawla al-xadaara al-islaamiyya ka warramo
nin dhallinyaraa baan ah hadal badan 2 saac iyo dheeraad baan maalin ileen 14 cashaan mar helaya marka waxay noqotay markaa inaan 2 saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas baa soo gaadho markaas la siiyay mala ninkan sheekh weyn waa sheekh weynna marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu in wax la duubo maan rabin waxaan xasuustaa waxba ha duubinaan ku yidhi nin dhallinyaraa baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yidhi sheekha ma fadhiyo wax akhri ama iska tag xagga dambe la fadhiista